runtii marka dadkii waa dhageysanteen dareenkoodii waa aragteen waxay qabaanna waad aragteen culayska magaalada ka jira haduu mid amni yahay mid dhaqaale yahay mid cariiri yahay mid nololeed yahayna waad aragteen waxaas oo dhan marka in aad nala aragtaan aaday u fiicnaa lahayd runtii magaaladan dadka jooga dulqaadkooda aad u badan yahay aaday dulqaad u muujiyeen haddii hogaamiye siyaasadeed ayaga leeyihiin la weeraray haddii madaxweynayaal jid isbaaro loo dhigay haddii mid kale la yiri ID-gaaga keen haddii si kasta la yeelay jidadkii la xiray canshuurtii daba laga dhigay wali dadkan dulqaadkoodii waa jira laakiin waxay isleeyihiin dulqaadkaas ama dhibaatadaas ku dhacaysa waqti ay leedahay oo 4 sano ka bacdi hadda soo sanad dhagdheer sheegay wax yaraaba ka dhimane xoogaa muddada la sugaaya dulqaadka xoogiisa wuxuu ku saleysan yahay in muddada ay dhamaanayso oo la sugaayo runtii aad iyo aad waxaan uga xunahay ra'samaalkii bulsho ee dadkan ay lahaayeen sida ganacsiga oo ra'samaal u leeyahay ay arrimaha bulshada ra'samaal u leeyihiin ra'samaalkaas bulsho oo dadku Soomaaliyeed ay ehelka wada yihiin oo xigtada wada yihiin oo dhaqanka ay wada yihiin ay isugu dulqaadanayaan oo dawladnimada la jecel yahay oo dawladnimada la raadinayo dadka baahi u qabaan dawladnimada ra'samaalkaas bulshahan rabnay inaan ku caano maalno oo danaheena anaga dhameysano laakiin hadda waxaa moodaa in safaarada ajnabiga loo baahday in ajnabiga uu nagu dhex jiro inay ayagii leeyihiin isku imaada inay ayagii fariimaha noo kala qaadayaan ma habooneen runtii waxaa fiicneed annagina isku filaano oo annaga aan nahay dadka wax isku tanaasulaya isku imaanaya ayagana isku maaragtay isku dhex imaanaya inaan ahaana fiicneed taas ma dhicin laakiin saasay tahayna waxa waaye waxaan rabnaa hawsha in meeshaan laga sii wado waa ogahay fariimo badan meeshaan laga dhiibay ma raba aniga inaan wada cusleeyo ra'iisul wasaarena inii diri maayo wax kalena inii diri maayo tan gobolka banaadirna waa noo wada taala oo annaga dhan mid noo dhaxayso waaye waxaana jecelnahay mooshinka baarlamaanka yaala ee maqaamka banaadir la xiriira kaas in la dhaqaajiyo si magaaladan maqaam iyo matalaad rasmiya ay u yeelato kaas halkaas waa halka aan ka abaarayo midaas waana wada raadinaynaa annagii idinkaba maqaamka muqdishone in la keeno inaa qabtiin waan aaminsanahay sababtoo ah dastuurka dalkayba ku taalaaba kaasna saas ayaan ka leeyahay intaas ah kaftan yaraan ku darayaho oday cali mahdi madaxweynaha wuxuu dhahay siyaasadda laga daayo waa run wuxuu ka wadaa gogoshaaba fariin siyaasadeed ah marka uma baahna in la sheego la yiraahdo waxaasay ka socotaa uma baahna marka ayadaha fariin siyaasadeed ku filan laakiin kaftan yaraan ku darayaa mid Saciid Mastar ka yimid oday Saciid Mastar waa dadka ay masaarada ku kaftamaan oo Saciid Mastar ay ka yimaadeen marka diyaarada uu soo koray xajka u socday markuu soo galo business class ku fadhiistay asii kalama yaqaan waliis diyaarad ma raacin kursi ugu horeeyo Saciidiintana xoogaa waxa lagu tiriyaa niman kulkul inay yihiin masaarida kalena ay xoogaa isleedahay nimanka reer baadiyo waa reer magaal ma kursigu fadhiistay gabdhihii iyo wiilashii diyaarad ka shaqeynaya u yimid waxay dhahan war kursigan business class la yiraahdo ka damba adiga leedahay markaas uu ya anima kaca ma kacayo dhahay waa diidi xoogaa in wuxuu u maleynaa leeyahay adiga ma tiid moogtahay oo meesha uma qalantid leeyahay u maleynaa markii dambe nin la socda waxa la yiri ninkii waa la kiilaayay kursigana waa business class meesha ka kici kii un baa dhigtay wuxuu saaray odagii wuu kacay meeshii loo tala galo tagay ninkii waxa maxaa u sheegtay wuxuu ku yiri diyaaradda meesha fadhiisatay dadka fadhiya xajka uma socdaan ariyo dhahay walaad odayaasha waxaan leeyahay Axmed iyo Saciido odayga waa in ku sinay bal doorashadiisa ogolaysiiye assalaamu calaykum